fariintii la xambaarsan ayaa ka timi abwaan geesi oo ah wiil dhalinyaro ah oo baraha bulshada aad looga yaqaano isla markaana ah majaajilayste. abwaan geesi ayaa yidhi 10 cisho ayaan u xanuunsanayay waxaanan aallaa cisbitaalka Nairobi ee dalka Kenya. hal mar ii soo duceeya, maanta waa berrina waa aakhiro. waxaa laga yaabaa inay ducadiinnu ay kacdo oo Ilaahay aqbalo. fadlan ha ka caajisin ducadayda. maalmo yar ayaan noolaan doonaa, kadib waxaan rajaynayaa inaan rabbigay la kulmo doono amaan ku caafimaad doono xanuunkan uu sheegay inay tahay buro dhuunta kaga taalla. ma aha midaan la sii noolaan doona, ayuu yidhi abwaanku. waxaannu idinka baryayaa ducadiinna oo ah inaad caafimaad degdega Ilaahay u weydiisaan ama naxariistiisa. uu sheegay dhakhaatiirta ayaa shalay uu la kulmay, waxaana igu wargeliyey inaan 1 isbuuc noolaan doono, laakiin wax walba xagga Rabbi ayay ka qoran yihiin. anigu geeri kama baqayo, ayuu yidhi. lacalla haddii ashashaydu dhammaato, awalba cid adduunka kumay baaqi noqonayn. waxaa laga yaabaa usbuuc kadib keligay inaan qabriga u hoyan doono. ilaahay ayaan kugu dhaarshe, ha ka aamusin ducadaydan ee walaal ii soo ducee. fariintan ayaa noqotay fariintii ugu naxdinta badnayd 24 saacee u dambeeyey. walaal, anna waxaan kaa codsanayaa inaad u ducayso.